asalaamu calaykum kusoo dhowow youtube channelkeena managerka halkan waxaynu kusoo gudbinaa sheekooyin dhacay kuwa la mala awaalay buugaag iyo qisooyinka ayna la soo wadaagaan asxaabta nagu xiran sidayna maanta saaxiibayaal waxay ka dhacday dalka hindiya sidoo kale waxaa laga sameeyey filim marka waxaa laga yaabaa inaad filimka horey u daawatay sheekada intaa kaaga sheekeynayana aad ficilo kamida kasoo xasuusatid filimkii ha isdhihin marka sheekadan qof baa hadda kahor hore uga sheekeeyey waa hubaa qof soomaali ah oo sheekadan hortay sheeka ahaan uga sheekeeyey ma jiro maadaama dadka ku nool hindiyana magacyadoodu ay ka duwan yihiin magacyada aynu inaga naqaano waynu bedelan doonaa magacyada shakhsiyaadka sheekada ku jira marka dhab ha u qaadanina magacyadaas oo haysdhihina dad hindiyo magacyada lebaa jira balse kahor intaynaan sheekada u gudagelin saaxiib waxaan kaa codsanaynaa haddii aad waqti u heli karto inaad muuqaalka like saarto sidoo kalena aad subscribe-na soo dhahdo haddii aad intaa mid kamida samaysay aad iyo aad baad u mahadsan tahay haddana sheekadeena aynu gudagalno waxaa jirtay gabar yar oo la yiraahdo xanaan markaan leeyahay gabar yar maaha inay nuuna yar beebi aheeda gabar dhalinyaray ahayd markaasi waxay dhammaysay dugsi sare iyadu ma aysan reebin inay jaamacad markiiba gasho waxay rabtay inay vacation waaliya qaadato intaasoo sana ay baashaashoy shaqaysato kadib ay jaamacadda facultiga rabto inay barata ay barato laakiin odayga aabaheedee dhalay ee mayaaga een waxba la marsiin karin oo waxbarashada ku aalan wuxuu yidhi ama nin baan kugu dariyo waan kuu guurin ama jaamacadaada gelaysaa wax ka dhexeeya malaha aabow hadda jaamacaddeedaan geliyaa guur ha igu soo sheegina laakiin maalmo yar waqtiga isii aan dhehe sanado yar waqtiga isii ma jirtuu yidhi walaaley ma sanadaa yar mawaalanta kaalay inuu waqtiga da kugu socday miyaadan ogeyn ama wax ii baro ama ii guurso aniga ma rabo naaga meelaha warwareegaysa waayahay bay tiri bal waay waxbaan baranayaa laakiin bisharada magaaladan ma ka rabo caasimadda ha la ii wareejiyo caasimadda hindiya gabadhii loo wareejiyey oo la yidhaahdo new delhi meesha ay ka tegaysana waa mumbai khalaas maadaama xanaan aabaheeda uu nin waxhaysta ahaa jaamacadaha ugu fiican mid ka mid ay gashay inkastaanay raalli ka ahayn intaa kadib xanaan waxay saamaysay xanaan daacaddii ma aysa rabin inay wax barato saas darteed jaamacadda way tegi jirtay way kasoo laaban jirtay mid ma aysa baran jirin buug maysa kala furi jirin way tagtaa way kusoo caajistaa marka lasoo fasaxana way soo tagtaa bes waa intaasoo keliyaba waxay xanaan jaamacaddii dhibsato oy isaga dhex caajisto maalin maalmaha ka mida iyadoo joogta maktabadda ama librariga wax lagu akhristo oo dee aan waxba akhrinaynin iska fadhida uun bay hal mar ardaydii meesha joogtay waxay ka dhex aragtay hal wiil oo indhaheeda u soo jiitay si aan weligeed qof u soo jiidan war wuxuu waxay tiri qurux badanaa subxaanallaahi maysa dhihin nahiihe wax saasay tiraahdaadi hindi wey dadkan waa taqaanaaye oh my god bay tiri kan intuu nambarka iga qorto jacayl ii sheegtuu ii guursado muu lixdan iga dhalo laakiin daacaddii wiilkii iyadoon ba aragtay asaga muusan arkin taasna waxay keentay wiilkii markiiba inuu meesha ka dhaqaaqo oo uu ka baxo librarigii miyay ka hartay iyaduna may way soo daba kacda war waxaan haddaan ka haray tiri ilaahay hayga haro way daba gashay say u daba socotay ilaa uu galaaskiisii ka aaday kadib markuu galaaskiisii galay gabar galaaska dhigatay way la hadashay ay tiri hello my name is xanaan misbaran karnaa waxay tiri barasho igama rabtide waxaa rabti inay weydiiso waddo dheer ha usoo marna i weydii walaalay ninkaa dheer magacii bay tiri asad baa la dhahaa bay tiri markay xanaan gabadhan la hadlaysay wiilkan magaciisa weydiinayso hadda iyadii asaguu u muuqdaa bartaas kula fadhiya way u tegi kartaa wadayaa magaca way dhihi kartaa laakiin way xishoonaysaa amaba aan dhahna weliga lahaydba wiil lama aysan hadlin kadib way iska noqotay iyadoo dee farxadda markan waxay heshay riisan ay jaamacadda ku imaan karto maalin walba dib bay galaaskeed ugu noqotay meeshii awal ay iska seexan jirtay markaan waxna ma dhegaysanayso mana jiifto nin bay ka fikeraysaa la yidhaahdo asid xanaan markaa su-aalaha maskaxdeeda ku wareeganaya ay ka mid yihiin ninkaas hadda xiriir miyuu leeya talow hadduusan lahayn seehuusa u yeelanay ninkaas a qurux badan ma naagdeynaysaa jirta macquul maaha laakiin anima laga yaaba aan la iigu talagalay may adliguguma talagalay uma qalintid foofool xuntaa baalba u egtaa may ka daa gebi ahaanteed ba xanaan dhaqankeeda wuu isbedelay waxay bilowday habeenkii inay asaga ku riyooto subaxi markay soo kacdo asaga ay ka fikerto waxay gaartay heer inay noqoto qofka ugu horeeya jaamacadda yimaado base u aragta markuu soo geliyo qaabka u soconayo heer waxay gaartay markuu baxay inay sii fiiriso lamana hadlayso kamana harayso maalin maalmaha ka mida iyadoo xanaan usii socotay fasalkii uu dhigan jiray asad si ay isha ugu soo yarxado bay waxay sii martay meel yar oo laabad ah oo ay gabdho joogaan kana hadlayaan asad waxay leeyihiin markaa bartan waxaa yaala sawiraan
asad u soo sawiray oo ninkan la leeyahay asad waa nin waxa weeyaan markay noqoto gacan ku sawirida ama artiska gacanta waa ninka waxa la leeyahay jaamacadda looga haray qof dhan buu soo sawirayaa maamulihii buu sawiray atrisha heblaayuu sawiray actor hebel buu sawiray director hebel sawiradiisii bay ammaanayeen marka oh my god asad hadda waan ii sawiri lahaa anoo saa u aalla markaasay dhahdaa bal waxaad daradooda ish meeshay xanaan usii socotay fasalkii asad way xanaaqday bay soo noqotay fasalkeedii bay aaday waxaa dhacay markaa way masayrtay seebaa asad loo ammaani karaa bay taagantaa anuu jooga macquul maaha maalinkaasoo keliya maaha xanaan marar badan bay aragtay isagoo la ammaanayo sawirada uu asad soo sawiray iyadana midaas ma aysan rabin ma ay rabto naag ficeeda inay ninkii jecesha ku dul ammaanto waxay samaysay markaa waxay bilowday meeshii uu sawirada markuu soo sawiray uu kusoo dhejin jiray inay isbaaro u dhigato sawir walbaba markuu soo dhejiyay goosataa gurigeeda geysataa si aan loo ammaaninba heer ay dadkii gaareen inay isweydiiyaan oy dhahaan kaale asad wax sawiradii miyuu iska daayay isaga qudhiisu wuu dareemayo war sawirada buu yiri marmarka qaar xabad waa la qaadan jiray laakiin sawiradan isbaarada loo dhiganayuu yiri ee kan hadda soo dhigay 10 daqiiqo kadib uusan meesha oolin see wuxuu jiraa saasay tahayna awalba meesha wuxuu soo dhigay in la qaato saxiixiisa gadaal kaga yaala iyo magaciisa xanaan qolkii ay hoteelka ka deganeed sawiraan bay ka buuxisay maalinkii dambe xanaan niyadeeda malaha waxaa kusoo dhacday maamahdii ahayd daahana hortiis dafanaa jooga waxay istiri ninkaana korka ka daawanayso horta maalinta dambe haddii lagaa dafa ka waran ma intaa u tagtay dan kala hadashid waxay go-aan ku gaartay berriba markay jaamacadda aado inay la hadasho dhahdo asalaamu calaykum walaalo waa kaa helay sawiradaada gabadha xadi jirta anay ahayd sababtaas u xadi jiray I love you ma jeceshahay haddaa ay jeceshahay namare haddaad jeclayn dee jeclow fatabakh waxay sabaysay marka habeenkii oo dhan waxay ku celcelinaysay ereyadii dhihilaad way qortay oo way xifdisay maalinkii baa la gaaray jaamacaddii baa la isugu yimi wuu ka soo horbaxa iyadoo soo socota meesha isleed la hadal wadnihii unba harmal istaagay way ag martay uun wadnaha dhagdhag iyiri bay tiri maanaa waa la hadli kara habeenkii dambe guriga ku noqotay oo qoraal aan inaba caadi ahayn iyo waxbay isku soo aadisatay subaxii baa la gaaray wuu soo agmaray way isdhaafeen haddana maalinkii dambey tiri dee sidaanu xal maaha wax meesha laiga haysta waa soo hadalka ma haddaanan hadlinba ka war sawiradii ay xadi jirtay mid ka mid ay soo qaaday nambarkeedii gadaal ugu qortay waxay tiri waa ina u geeyo oo dhaho sawirkaaga meesha ka soo helay hadduu reer magaal yahay uu nambarkaa ka soo waco kadibna ay wax walba xaggaa uga sheegto ama ay u qorto haabay tiri qorshahaasa ugu dhow qorshaha ugu macquulsan waa kaa ilaahay baa ile nin ma hor istaagi kari tiri ma dhihi kara gujaclaha xanuun weeye marka saasaan samaynayaa maxaa dhacay marka maalinkii waxay soo qaaday sawiradii u sawirayay guriga u yaalay xadi jirtay mid ka mida jaamacaddii bay la timi way sugtay intuu imaanayo wuu imaan waayey waxa istiraahday malaha wuuba joogayba fasalkiisii bay kasoo raadisay way kasoo weeday librarygii aaday way kasoo weeday daaradda imaatay way ka weeday xafiisyadii iyo suuliyaashii soo ag istaagtay way soo weeday fasalkiisii bay ku noqotay haddana gabadhii hadda ka hor magaceeda u sheegi jirtay ma xasuustaan ay dhihi jirtay ninkan asad baa la dhahaa bay tiri mee asad xaguu ka baxa waxay tiri asad wiilashii saaxiibadiihin mid ka mid a boyfriendkayga ah wuxuuna ii sheegay asad markaa in aanu imaanayn jaamacadda sabab bay tiri markaa howlo kala qabsaday bay tiri magaalada buu ka tegey marka ma aqaan inuu jaamacadda sii wadi doono inuu imaan doono ma ogi waxba kama ogi qoftii xanaan ahayd habeen baa kusoo dumay may maalin bay ahayd maalin baa kusoo duntay tegitaankii uu asad ka tegay jaamacadda xanaan waxaa u bilaabatay silsilad dheer oo murugo iyo caajis ah way tabtay daacaddii way tabtay laakiin dii hadda way qoomamaynaysaa maxaad ula hadli weeday intaanu tegin ka hor bay taagan tahay hadda waayitaankii ay xanaan weeday asad waxaa kasoo wareegatay muddo bila ah maalin ay xanaan ka timaaday jaamacaddii timidna hoteelkii iyadoo sugaysa elevatorka ama liftiga ama wiishka markaa xanaan waxay taagan tahay dabaqa ugu hooseeya tarkii wuu yimi wuu isfuray way gashay kor buu aaday dabaq walbaba qof baa kasii raacaya ama laba qof ooda uu istaagaya elevatorku waa taqaanaan ama wiishka dabaqii labaad markii la marayay dad baa soo galay kii saddexaad markii la marayay dad baa soo galay kii afraad markii la marayay dad baa soo galay dadkaa soo galay kii afraad markii la marayay waxaa ka mid ahaa asad xanaan way aragtay asad markaan wiishkeena ku dhex aragtay keligoodna ma ahanay dad badan baa meesha ku dhex jira dadkan dabaqyada hoose kasoo raacay elevatorka dabaqyada koray rabaan markaa dabaqa walbuu istaagaba dad baa sii baxayay dabaqa ku-xigaa la gaaraya dad baa kasii baxaya ilaa dabaqii ugu dambeeyey ay isla soo hareen asad iyo xanaan elevatorkii bay kasoo wada baxeen isagaa hadalku bilaabay wuxuu yiri waxaan u malaynaya inaa meel kugu arkay markaasay tiri haa amba waa u malaynaya laga yaaba inaa jaamacadda isla dhigan jirnay wuu yiri jaamacadda isla dhigan jirtay haa ani xataa waa dhigan jiray inaan ku arkaan u malaynaya dhowr jeer baa iga soo horbaxday haa bay tiri haa wuxuu yiri weli jaamacadda ma dhigataa waxay tiri haa waa dhigtaa haddaba waxbarashadaada ku mashquul buu yiri waxbarashada wax aad iyo aad u fiican khudbad dheer buu galay intii usii socdeen waxay tiri bes haddaba khudbadda xagaan igu jooji qolkaygaan gelayaa wada hel buu yiri qolkaana degan tahay markaas tiri haa markaasuu yiri annakan kaasoo horjeedaa deganahay bay tiri waa arrin iska caadi way dhacdaa okay qolkaa iska gal khayr badan qolkeedii bay gashay markay saa u gashay way inta fadhiisatay tiri
haddaan waxbarashadeeda ugu mashquuli lahaa sidaan asaga ugu mashquulay xilligan ardayda ugu sarreysa ka mid noqon lahaa. Markaasuu ku leeyahay waxbarashadaada ku mashquul, farxad iyo jacayl iyo buuq iyo waxbay daarata. xanaan ninkay intaasoo bilood daba socotay ee waxaan ku yidhi habeenbe waxay ku dhihi lahayd ay qori jirtay ee xifdin jirtay. markii ugu horreysay ee ay toos u wada hadleen securely oo la hadashay inay dhahdo sida qolkiga la gaaro walaalaga amadu allaha leeyahay. intaa kadib xanaan waxaa u bilowday maalmo qurux badan. maalin walba asoo qolka sii gelaya aragtaa, soo soo baxaya aragtaa, iyadoo maalinkii markay jaamacadda aado gelinka dambe oo kale waxay aragtaa isagoo aalamiita ka yimi. maalinkii dambe waxay go-aan ku gaartay inay iyadoon weliga lahayd ba aalamiiteen inay la aalamiitayso. maalin walbaba intay soo labisato markuu bixra way isku soo beegtaayo waxay dhahdaa hey namari ma orad boo socotaa isla soo ordaynaa. way tagaan, way soo ordaan, way iska soo sheekaystaan, way iska soo faataa bakleeyaan, hadhow kala yimaadaan. markaasay haddana farxad alla markuusaa kuu eegaya tintiisa ma maqlaysa haalay iska arag cajiib gabadhii. heer waxay gaadhay inay marmarka qaar ka fiiriso daloolka albaabka inuu albaabka furayo in kale muu soo baxo isleedaa. markaasuu kasoo daahaa, markuu soo daaho usaa usoo furay iyadana furtaa. markaasi dhada isku mar baa soo baxnay been hadda waa naag maata daloolka fiirinaysay. namari waa soo wada ordaynay, way soo wada ordaan, waxaasay bilowda. intaa kadib maxaa dhacay? maalin maalmaha ka mid a iyadoo xanaan ka timaaday jaamacaddii yimaatayna hoteelkii markay qolkeedii soo hor istaagtay bay waxay aragtay buug iska weynaaday ama album la geliyo sawirada ama warqadaha waaweyn oo qolkeeda hor yaala. iridka hore albaabka way qaaday, gudihii bay la gashay, way furtay. waxay aragtay sawiro badan oo iyada leedahay oo gacanta lagu sawiray, taariikhihii la sawiray iyadoo sa usii jeeda iyadoo sa usoo jeeda. way dareentay inuu asagu sawiray. meeshii u dambeysay markay maraysay waxay soo bixisay warqad dheer oo labada bogba ay wax kaga qoran yihiin. waxaas ku qornaadee tabtii u qornaayeen uma akhrinayna hadda ee waan soo koobaynaa. warqadda waxaa ku qornayd qofka sawirada sawiray inuu yahay asad inuu gabadhan jeclaadayna markii ay jaamacadda dhigan jireen. ma xasuusataan markii xanaan ay guriga iyada joogto sii qori jirtay waxay ku dhihi lahayd asad at the same time asadna wuxuu qori jiray wuxuu iyada ku dhihi lahaa oo sideedoo kale fulay ahaa. maalinkii ugu horreysay ee ay xanaan asad ku aragtay maktabadda isla maalintaasoo asna arkay oo way ka dhex baxda. intaasoo bilood bay iyaduna waxay isku dayeysay inay la hadasho, asna wuxuu isku dayay inuu la hadlo. warqadda wuxuu ugu qoray inuu ifka ugu jecel yahay, inuu ku faraxsan yahay waxyaabaha dhex maray haddoo dhan, inay saaxiiba yihiin, inay soo aalamiiteeyaan. sidoo kale warqadda waxaa ku qornayd in uu ka fiirin jiray daloolka intaysa soo bixin ka hor xilligay orodka aadayaan. waana isla xilliga iyada laftarkeedu ay daloolka ka fiirin jirtay markuu soo baxayo. markii dalool ka fiiris uu soo baxo waa maruu asagu si u fiirinay intuu daalay uu soo baxay kadibna iyadu soo baxdo. in allaala intay u qabtay ka badan inuu u qabay ama lamid inuu u qabay warqadda ku qoran. markaasay intay ilinta cashan weeday bay soo baxday. intaysa soo bixin daloolkii fiiris inuu soo bixi rabay in kale show asna wuu fiirinayaa. markaan way is og yihiin dee iyadana way u sheegtay isna wuu ogyahay inuu u sheegay moogta.